Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray markan iyo haatan kusoo dhawaada caawa waxaan idiin haynaa qodobadii hore qodob ka duwan bodhkaastiga amuun ayaa caawa waxaan idinku haynaa barnaamij xiiso badan. Barnaamijkani waxa uu noqon doonaa guurkii hore iyo guurka hadda waxay ku kala duwan yihiin. Guurkii hore iyo guurka waqtigani aad iyo aad bay u kala duwan yihiin, farqi badan baa markaasi u dhaxeeya. Waqtigii hore guurku wuxuu ahaa wax fudud oo qofka bini'aadanka labada qof ee markaasi isjeclaada amaba haasaawe isla qaato oo isla haasaawa inuu dhib yaraan ahaan jiray. Inta badan waa la hidda raaci jiray, waalidiinta ayaa markaasi la odhan jiray qofkaasi waa reerkee iyo gabadhaasi reerka ay ka dhalatay waa reer caynkeeya, reer wanaagsan ma yihiin. Kolley waxyaabo badan oo hayb la yidhaahdo oo la is haybsan jiray baa jirtay oo inanta reerkooda iyo inanka reerkoodaba lagu kala garan jiray in qofkaasi qof la guursan karo ama gabadhaasi gabadh la guursan karo ay tahay. Waqtiyadii hore marka ay wiilka iyo gabadhu haasaawaan waxaa lagu haasaawi jiray haasaawe asturan. Haasaawahoogu kolley uu ka duwanaa waqti xaadirkan ka jira. Waqtigaasi inantiyo inanku way isku baaqi jireen, wax baaq la yidhaahdaa jiray. Baaqaasi kaba soo qaad gabadhi iyadoo la joogta ariga ayaa waxay samayn jirtay in ay wiilka marka ay is arkaan ay indhaha saa iskaga qaadaan ay ku odhan jirtay meel heblaayo ama ariga halka aan la joogo aynu iskugu nimaadno. Inta badan dumarku way xishoon jireen, meel ay dad ka dhow yihiin amaba meelo ay dadku ka arkayaan umay haasaawi jireen. Markay haasaawayaan waxaa dhici jirtay in geed xaggiisa dambe ay labaduba ka mari jireen. Gabadha oo maydhaxdeedii iska diiranaysa oo hawlaheedii iska wadata arigeediina raacaysa ayuu wiilka la haasaawaya iman jiray, erayo iyagu ay isku afkartaan ayay isku afgaran jireen. Waqti xaadirkan uu ka duwan yahay amaba uu ka bedelan yahay. Waxyaabaha uu kaga bedelan yahay haddaynu taataabano horta iminka guurku u qaaliyoobay. Waqtigan guurku wuxuu noqday lacag, hayb ma jirto, aalad casri ah ayaa jirta, wax internet la yidhaahdo ama baraha bulshada ayaa soo baxay. Waxaa dhici karta inuu qofka halkaasi uu ka barto aaladda TikTok-ga, hadday noqoto aaladda WhatsApp-ka ama Facebook-ga, adigu baraha bulshada ayay dadku iska bartaan dhalinyartu. Dabadeed halkaa ay iska baranayaan ayaa waxa dhacda inay halkaa sheeko ka bilaabaan oo sheekooyin jacayla iyo haasaawe laga yaabaa inay labadaa qof kala meel joogaan amaba kala waddan joogaan. Inuu dalka dibaddiisa joogaa laga yaabaa wiilku amaba gabadhu ay joogto, qofka kalena inuu Afrika joogaa suurtagala. Badanaa waxaa dhacda in khadkaa la iska bartay iyadoon dadku ayna hayb ahaan ayna isgaranayn. Laga yaabaa inayna qoladiisa xataa garanayn amaba uunu garanayn gabadha qoladeeda. Waxaa dhici karta in la isku sheegto uun laba qof oon is arag, laba qof oon is hayb garanayn, laba qof oo kala qaarad jooga, magaca Soomaaliyeed ka siman in ay waxa dhacda markaasi baraha bulshada iyagoo iska bartay ay bartaa iska guursadaan. Hadhow waxaa dhici karta labadii qof aqoon iskuma leh, magac ahaan iyo qabiil ahaan meel ay ka soo jeedaan isma yaqaanaan. Aalad TikTok la yidhaa amaba WhatsApp amaba Facebook waxyaabo badan oo laga isticmaalo internet ayaa la isku bartay. Waxaa dhacda inay labadii qof isfahmi waayaan hadhow marka ay isku yimaadaan. Marka guurkii hore iyo guurka haddaan u soo noqdo haddana aad bay u kala duwan yihiin. Waqtigii hore dadku siday isku helaan way adkaan jirtay. Sidaa nambarada iyo maxaan ku dhahdaa la kala qaadanayay labada nambar ayay dadku ku wada socon jireen waqti xaadirkan oonay ku wada socdaan. Nambaradaasi la kala qaadanayo ayaa waxa dhacday inay labada qof wada hadal ay isku bartaan. Aan soo qabto waqtiyadii hore
guurka marka la isguursado qaabkee bay hooyada gabadha dhashay qaab caynkee bay ugu soo diiqi jirtay waqtiyadii hore hooyadu waxay u soo diiqaysay waqtigaasi uu sahlanaa wax waliba gabadha mariinkeedii sidoo kale waxyaabo yaryar oon badnayn oo gabadha sida masarka oo kale sida maxaan ku dhaha garayska wax la odhan jiray baa jiray oy garayskaasi gabadhu xidhan jirtay hooyadu wax badan oo lagu mashquulo oy qaadi jirtay ma jiro kaba soo qaad waxay qaadaysay fandhaalka iyo xeedhada cuntada lagu cuno sidoo kale waxay qaadaysay muqmad amaba fujaan hooyadu ay gabadheeda ugu diiqaysay waqti xaadirkan way ka duwan tahay waxaad arkaysaan in dadku amaba hooyadu labada qof ee isguursada hooyada weliba gabadha dhashay ee gabadha hooyadeedii ay dhibaataysan tahay waxaad arkaysaa gaadhi dhan oo alaaba hadday fujaano tahay hadday alaab guri oo dhan tahay hadday alaab guri lagu goglo tahay waxyaabo badan bay hooyadu qaadaysa in guurka la qaaliyeeyona ma wanaagsana nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu yidhi guurka hala fudaydiyo laakiin waqti xaadirkan guurku aad buu qaali u yahay waxaa laga yaabaa dhalinyar badan oo guursan lahayd amaba guur ku hamiyeysay inay qaali ahaan dib uga laaban karaan ugu dambayn waxaan ku soo xidhi doonaa barnaamijka su'aalo kala duwan weliba su-aasha koowaad haddaan soo qabto waxay ku leedahay waxaad sheegtaa waxa keliya amaba xayawaanka keliya ee eegmada ku koriya ubadkiisa qofka u horeeya ee su-aashani ka jawaaba ee ka soo hor jawaaba wuxuu nagu leeyahay 200 oo bir oo kaar waad mahadsantihiin